السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شيخي ما يقيال من ربنا قد دعونا إنسان هبين وناكسن بين رجينيا وحن كجرا بندي قدام بشبرة كيسن إلهي وحن كبريان أن نقولنا دمانتين كو نار تلقى حري ما ردين بيقولي لله فينا نقولنا رجينا إن شاء الله إلى دينا صاركتان بشير رمضان بشير عبادة لفتي هذا إبليس كي مركي لحد حيتا يعني basharkii caadiga ahaabaa maaragtay ibliis nagu noqday marka aad iyo aad baa idin salaamaya dhammaantiin walaalayaal soo dhawaada sheergareeya video gaadhsiiya dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka etoobiya gumaysato oo dhan gaadhsiiya maada fariin muhiima raba inaan ka hadlo qodobo badan oo beryaan laisla dhex meeleysanaya bulaan iyo buuq baraha bulshada runtii oo ka socday yaan raba inaan caawo waxooga ku faataxaysto oo mid u saafo mogta oon ku dabadaalay bulshadan saan u lahayn maaragtay ka daba gaadhsiiya dabaqabta badbaadiya wax u sheega mar walba waxaan isleyn waajibkii nabigan baan iska ridayna ahayd ninkii arka wax khaldan gacantiisa ku joojiya hadduu awoodin afkiisa hadduuna awoodin qalbiga hadda gacan meelaan wax ku joojina ma joogno laakiin waxaan haynaa yacni waxaan awoodnaa inaan hadallo oon sheegno waxaynala tahay in u aragna xaq inay tahay marka koowaad shacabka soomaaliyeed waa shacab muslima nabigeenu calayhi salaatu wasalaam iyo aayadaha qur-aanka kitaabka waxay sheegeen muslimku inay yihiin hal jir hadduu mid xanuunsado ka kale wuu la xanuunsadaa yacni walaalkaa inuu xanuunkiisa inaad ku faraxdo maaha inaad walaalkaaga muslimkaa kaleeta cadow ka dhigatana maaha ta kale ilaahay wuu noo caddeeyey wax walba wuxuu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu war xarigga ilaahay qabsada oo ha qaybsamayna maxaa dhacaya xarigga ilaahay haddaad qabsan weydaan oo qaybsantaan fatafshalow waad fashilmaysaan waxaa weeye wadada bariix yani xumaantiin oo dhanna bannaanka imanaysaa hadda waxaan taagan waa wax aayaduna ka sheekeeyeen axaadiistuna ka sheekeeyeen natiijada laga dhaxlayana aynu wada garanayno oo ah faashil iyo burbur iyo saysad iyo bulaan iyo adaa ii lahaa waxaasoo dhan waynu garanaynaa waddadii ilaahay iyo rasuulkeenu noo jideeyey ee uu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinka ugu dambeysay nagala dardaarmay ee uu yidhi war sidaa yeela haddaad sidaa samaysaan weligiin fashilmi maysaan isna qaban maysaan dhibaatana iman mayso guuldarana arki maysaan innagaa ka leexanay guuldaraynu dooranay iyo fashil haddana waxaad moodaa fashilkii gacmahayana aan ku dooranno aynu gacmaheena dembigeenu ku abuurno inaynan taxamulkeedii lahayn oynu leenahay maxaa naloo xasuuqay maxaa naloo laayay maxaa naloo gowrgowracay oo maxaa lagu gowrgowraci waaya waddadii laisku gowrgowracay aad martee waad qaybsantay xuduudaadii iyo caqligaaga baad midayn weyday waad is ixtiraami weyday walaaltinimadii iyo ha qaybsanadii ilaahay ku yiri ee rasuulkiisa ku yiri baad garab martay marka isagaasoo inaad is wada qabsato oo isxasuuqdo oo isdisho ma imanayso marka waxaad ogaataan walaalayaal ilaahay wuxuu leeyahay maa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum yacni wax walba oo masiibo oo adduunka idinku dhaca gacmihiina aad ku keensateen yacni haddii aydan gacmihiina kuguma dhacayaan waxaydan gacmihiina ku keensanayn ilaahay dadka ma dulmiyo laakiin dadku iyakaa naftooda dulmiyo ilaahay leeyahay marka walaalayaal xasuuqa iyo bahdilkii iyo gowgowricii idinku soo dhacay oo dhan waxaad u qaadataan homework inay ahayd idinku inaad dulmiga aad garab istaagteen idinku inaydan isu cadaalad falaynin idinku inaydan sharciga dhinaciisa ahayn idinku inaad mar walba aayadii iyo xadiiskii ilaahay idinku sheega waddadii guushoo dhan inaad ka leexateen wadaadeen wadda ree hebel iyo ishaysad iyo muran iyo markaana qayrkiina aydan qaybsadaan qayrkiina markaasay rabaan idinka yeelaan haddaad rabtaan guul iyo samatabax iyo wanaag iyo sharaf waddadaad u maraysaan waa taqaanaan waddadaasna waxay tahay inaad istixgelisaan inaad isqadarisaan inaad xumaanta meel uga soo wada jeesataan wanaagana aad wada taageertaan waa jidka keli ah eed awoodaan inaad wanaag ku gaadhaan qof walbana cadaaladiisa iyo xuquuqdiisa la ilaaliya hadduu yahay qabiil yar iyo hadduu yahay qabiil badan iyo hadduu degmo dego iyo hadduu 100 gobol degaba in dadkaasu siman xuquuqdooda u wadaagaan meeshu cadaalad darro ka dhacdo waa cadaalad darro meel walba ka dhacday haddii cadaalad la waayo dad walaalkaa ah oo lagu dulmayaa daawatood ku farxday adigana way kugu soo noqonaysaa isna berri buu kugu farxay waxaan dhacay oo dhan dadka ahlu cilmiga ah ee diinta yaqaana
ama cilmiga maadiga yaqaano way garanayeen wayna og yihiin kamana walwalayaan sababtoo way og yihiin natiijada waddada lahayo inay tahay waddadii halaaga way garanayaan ma u malaynaysaan hadda dowladda deegaanka waxa ka socda ee dulmi ee hanti booba ee tuuganimo ah ee dhicid ah ee haddadan jirta iskaba dhaaf kuwii hore xasuuqa iyo baaba ahay in ma u malaynaysaan dadka qaarkood aan xuquuqdoodii midna la siinayn ma u malaynaysaan inay ku xigi doonto tul laisku xasuuqo oo laisku baabi'iyo oo digada layska dhigo inay xigayso wallaahi bilaahi tallaahi way imanaysaa haddii shalaayo ka waaweyn baana loo tegi doonaa haddii ciyaarta iyo malayacniga iyo niikada iyo qabyaalada raqiiska ah iyo isu fiirsiga raqiiska ah intii layska daayo aan wanaagga ummadda meel looga soo wada jeesan oo danta iyo masaalixda ummadda meel looga soo wada jeesan oo qofkii xun hadduu in adeerkaa yahay iyo hadduu aabbaha yahay iyo qabiilkaaga hadduu yahay iyo jufada hadduu yahay ayna meel uga soo wada jeesan shacabkaas Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato waxaa weeye hogaamin xumo ayaa haysata hogaamin xumidu waxay u haysatana waxaa weeye waa gumaysiga intuu dhex fadhiyo weligood heli maayeen hogaamiye saxa sababtoo looguma talagelin inay hogaamiye saxa helaan looguma talagelin inay tacliin yeeshaan looguma talagelin inay horumar yeeshaan sababtoo dad aqoon leh oo tacliin leh oo horumar leh oo walaalo ehela cid adoonsan karta malaha laakiin intii iyagu maanta oo dhan madaxa la isu geliyo oo jufo walbaba jufada kala dhoo madaxa kaga istaag yaa shidaalkoodii booyadaha saa loogu daldalayo yaa iyaguna sun u dhimanayaan ceelka tuuladii laga soo bixinaya sunbaa iyo gaajaa loogu dhimanayaa iyagiina waxay taagan yihiin reer hebel baa inta maray reer hebel baa inta maray iyo hebel baa kursi haystay wax lamida waa wax laga xishoodo runtii qofka damiirka leh meelaha qaarkood ma aado indhaha dadkaasu ma aadaan intii dembi la sheegayay ee lalahaa qof Soomaaliya baa wax xasuuqay ama wax sameeyey lama hayo raggii saraakiisha iyo dowladda Itoobiya waxaan oo dhan ba aabiyo hooyadu ahayd cid aaday ma jirto cid la xisaabtantay ma jirto cid ahday war nimankaana xasuuqay ee dowladda Itoobiya magdhoweynaana siiso ma jirto mid walba wiil yar oo ama jaajuus oo jaahil ah oo gumaysigu soo adeegsanayay dembigii oo dhan dush ka saaray waxaasna wax kalama waa fulaynimo weeyaan qofka dadku hadday yihiin dad shakhsiyad leh oo damiir leh oo geesi ah taliska Itoobiya la xisaabtami lahaa intay mid noqdaan oo dhihi lahayn magdhowgeedana nala siiyo haddiise Itoobiya la xisaabtami waayeen dhexdooda maanta oo dhan inay madaxa iskula jiri lahaayeen waana weyn oo cadaalad ma ka imanayso dowladda Itoobiya soo magacowday weligeed cadaalad ma keenayso weligeedna horumar ma keenayso weligeedna xisaabtan ma imanayo maalinkii kow isbedel ku dhacay baan niri qof walba hala xisaabiyo oo kuwii jaaliyadaha dibadaha ka heesayay ee taageerayay iyo kuwii liyu booliska dadka xasuuqayay iyo kuwii soo amreeyay jananada ahaa iyo Itoobiya iyo waddamadii reer galbeedka intaba halala xisaabtamo laakiin mayna dhicin mana dhacayso sababta gumaysiga ugu talagalay waxaa la sameeyey riwaayad yar oo raqiisa oo iyaga madaxa la isu geliya qaarna dambiilayaasha qaarna in janana laga dhigo iyo korneylo qaarna la dhowaa dambiilayaal la kala xolo sharcigii oo dhan meesha uu ku lumo qof la xisaabtamina uu jirin haddana ayba taagan tahay reer hebel baa xasuuqay riwaayadda yar ee raqiiska cayntaynka reer hebel ku xasuuqiye ahayd reer hebel ku xasuuqay xaggee joogaan reer hebel xasuuqi karay weligood bay wada joogaan qoryan isku haysteen weligoodna ismayna xasuuqi jirine reer hebelka hadda isxasuuqay muxuu ah siyaasad la dejiyey oo noognahay oo wikileaks ku jirta oo maraykanka iyo ingiriiska wada dejiyeen oo Itoobiya ay dejisay policy buu ahaa bolisidaa shakhsiyaad jiraya shakhsiyadiina in la wada qabto lama ogola oo dowladdan deegaanka hadda jirtay iyo tii ka horeysayna waaba tii fulinaysay tanna inay la xisaabtanto way diiday marka kuwa jaahiliinta ee dadka isku mashquulinaya maxay yihiin ee maanta oo dhan maaragtay hebelow kana saamba heega inta martayda ku haya war jaranadii baa taagan jaran walba oo mujrim oo taagan 100 qof ama 50 qof ama 20 qof degmada dhagax madow 57 qof yaa lagu aasay nolol saacadoodii ilaa hadda saacadii baa ka dhex qayleysa hal jufay ahaayeen ilaa hadda dheedheed markii saacadu buuxsanto dheedheed nin walba alarmidiisa waa ka dhex qayleysa waana la maqlaa raggii la yaqaanay saraakiil ba ahayn tigray u adeegsanayay jifooyinkoodii baa la yaqaanaa waana saraakiil hadda taagan oo dowlad deegaan ka mid ah lamana qabanayo
markay cadaalad darrada aynu raadinayno iyo dembigeenu ka sheekeeyano maxay tahay markay arrimahaas kale ay taagan yihiin waynuuna galaalsho wixii ka dhacay hal maalin baa waxaa la aasay intaasoo muwaadin oo aan birmageyda oo loo laayay iyagoo dhan baa ubaa waxa siyaasaddii booliska Ethiopia ahayn shakhsiyada fulinaya Soomaali iyo federaal bay isugu jireen shakhsiyadii waa wada saraakiil jooga dowlad deegaanka ka mid ah inta la qabtay aad bay u yirihiin looma dhaqaaqay looma socdo Ethiopiana la iskama xoreyn maxaa la sameeyay marka wadankii ma xoroobin cadaalad gacan kugu jirto waxaa la yiri waxaa weeye waxaad sidaad rabtaa haddaad weydo sidaynu ku huraynin baa la yeelaa mar haddaad awoodi weyday inaad gumaysiga intaas ka xorayso dembiilayaasha aad la xisaabtanto oo cadaalad taam aad hesho ood gumaysigii mar isu soo dhiibtay ood gumaysigii la joogto waxaa muhiima in lagu mashquulo warsaynu marxaladan saynu uga faa'iidaysanaa waxaynu markaa haysano taasoo ah saynu caruurteena wax u barnaa jahligan saynu uga baxnaa say dad aan xasuuqaynin u yimaadaan yaa habboon runtii in la dhawo laakiin in dadkii laisku sii mashquuliyo oo laisku laayo oo maanta dhan reereeda lagu hayo wax micno oo badan samaynayso waxaan rabaa qodob yar inaan ka hadlo laba niman baa shir ku qabtay Addis Ababa isbedel doon baan nahay bay dhaheen dowladda deegaanka mucaarad ku nahay bay dhaheen nimanka iyaga shirka ay qabteen dowladda deegaanka in la mucaarado waa caadi sababo lagu mucaaradana wayba leedahay sababtoo ah haddii degaankii in laga hadlo ay diido oo jigjigo u saamixi weydo dadku inay fikirkooda ku cabiraan iyagoo degaankoodii joogay daasaba inay tagaan way ku qasban yihiin dadku ay meelaha ka hadlaan haddii khayraadkii dadka si cadaalada loo qaybin waayo oo dadna ay maaragtay khayraadkii boobayaan qaarna ay gaajaysan yihiin dee dadku way hadlayaan cadaalad darro markay timaado dadku inay hadlaan waa wax dabiici ah oo laiskula yaabayn marka dadka Addis Ababa tegay way hadleen laakiin maxay ku hadleen shirkoodii abaabulkoodu ah runtii wuxuu ah aad iyo aad inay hadlaan ma xumo anugan taageeraya inay hadlaan meel walba in lagu hadlaan anu qabaa in jigjiga haddii lagu mudaaraadi karo lagu mudaaraado qabidaara haddii laga hadlo qof walba wax tabanaya waa inuu tabashidiisa si xadaarada oo ilbaxnimo u sheegto u dhow waxaa iyo waxaa iyo waxaaba lagu sameeyey haddaad hoggaan diidan tahay hoggaanka waxaa iyo waxaa iyo waxaaban ku diidan ina dhow waa very important arrinta marka maxaa dhacday runtii shirkaas Addis Ababa ka dhacay aan qabanno shir mooyaane qorshe iyo istiraatiijiyad iyo barnaamijka iyo dowlad deegaanka waxay ka tabanayaan oo cad mayna soo gudbinin meel rooti lagu cunayo oo maanta dhan bulaanka iyo qaadada yeeraysa iyo maqaacada yeeraysa aad yaabaysa bayd runtii ma ay ahana arrimaha noocaasna maaha markaas arrin siyaasad ka hadlayso waa in cuntada meesha ka baxdo waa in cabitaanku meesha ka baxo waa in dad barnaamij saxa oo dowladda laga tabanayo waa inuu yimaado oo dadka dadweynaha loo soo bandhigo waxaad tabanaysaan iyo wax ka fiican ay badiileed haysaan haddii Mustafa la bedelo maxaa ka fiican oo la hayaa shakhsiyada ka fiican ee la hayaa maxay yihiin magacyahood maxaa isbedelo keenaysa haddii aad Mustafa bedesho iyo systemkiisii Mustafa dee tusaale usoo qaadanaya waa madaxii dowlad deegaanka laakiin waxaan ka wada iyo tiimkiisa fikirkaa ka fiican aad hayso muxuu yahay waa inaad qaab noocaasa u dalgasho laakiin arrimuhu hadday qabiil galaan iyo qabiil lacay iyo hebel baatuuga iyo caraatankii kasoo yeeraya runtii arrintaa iyada arrin saxa ma ah mana caawinayso shirkan micnihiisii bay tiraysaa dadkaas soo socdana bal ee Mustafa ciidan u samaynaysaa iyo dowlad deegaanka hadda jirta caraatan iyo garaado la caayo iyo suldaamo la caayo iyo odayaal la caayo iyo xataa Mustafa in la caayo sax ma ah waa in Mustafa wixii laga tabanayo iyo khaladkiisa siyaasadeed la abaaro laakiin ma aha in qabiilkiisa la caayo ma aha in jifadiisa la caayo ma aha in deegaankiisa la caayo ma aha waxaas oo dhan ma aha arrinta marka loo baahan yahay waxay tahay dadku way is mucaaradaan adduunka oo dhan mucaaradadu way ka jirtaa laakiin in laisu mucaarado si ilbaxnimo ah in laisu mucaarado oo markii dadka mikrofoonada la siinayo urur walba oo soo organize gareeya shir dadka hadlaya iyo fariinta gudbinaya way iyaga mas'uuliyadda qaadaya waa inay mas'uuliyadda qaadaan oo qof walba wuxuu ka hadlaya iyo mowduucu ka hadlayo waa ina caddahay ma aha in qabiilo la aflagaadeeyo ma aha in qabiilo lagu xadgudbo ma aha in garaade iyo salaadiin lagu xadgudbo runtii waa khalad weeye dadka salaadiinta iyo dhaqanku beel dhan bay madax u yihiin حتى خلاد يضود ولا شيء كرا لكن على شيء لا سي أسلوبيسن هبل هبل أضودي كرتا بشير جراد بشير جراد أحمد مختار
يعني دنبي قاسن كقلي ساس نقول سمي خلط كاسو قلي وعد ومرخاتي وعادي ويا دنبي معه هاد خلط يأدا عد إنه تحت لكن جراد هبل وجاجوس وجاجوس ده معناه محا إنه جاجوس يمحا عدين هسا إنه يمحا عدين هسا بروف كاي كان يعني oday dhaqan oo reer dhan inaad maaragtay usoo qaadato jaa'ifeyn aan haysasnin cadaymo absolutely waa arrin qalada waa arrin qalada arrin la qaadan kara ma arrin saxa ma ah taa iyada waa inaad mar walba hoosta ka xariiqaan ta kale dadku markay microphone ka soo hadlaan median waa yani waa dembi lagu daba raaci karo laguna ciqaabi karo ma inaad waxaad rabto ku hadli kartaan حتى مصطفى ما انك واحد قد بكرتان وحنا صمينين دنبي انا عدينا هنا تكون ايسان ما وين تكون ايسان واحد او بروف له او سا يسا وسمي مركز وواحد قرعوي الهي باكو الهين وكو دفاع مركز كنت شيغيسو اي arrintaadu qadiyad leedahay oo boys leedahay laakiin markaadan qadiyadaadu taa iska alif iyo qabyaalad iyo nacayb in iska tahay iyo iska afuuf meel ku tagi meysaan ku guulaysan meysaan ilaahina ku garab siin maayo dadkoo dhan way kaa soo horjeesan arrinta marka waxaan leeyahay walaalayaal dowlad deegaanka dhaliilo badan bay leedahay ceebo badan bay leedahay tacliintu waa down lacagii oo dhan waa la iska cunaa caruurtii deegaanka waa bilaa mustaqbal garsoorku waa down dadkiiba boosaskoodii xataa dadkii boosaskoodii sharci leh baa laga xoogayaa oo qaadi beenaala uu dad kala siinaya oo dadkii saa madaxa la suu gelinaya qabiiladu waa kuwa islaynaya wada xisaabtan ma jiro qabqablayaal tuuga ah goboltooriyaal meel walba joogaya degmo walba waxaasoo ceebay dowladdu leedahay oo la sheegi karaa oo si xadaarada loo sheegi karaa oo mustafiya tiimkiisa adoon qabiil caynin oon garaad caynin oon suldaan caynin aad sheegi kara waa inta loo baahan yahay in la iska kaashado oo dhalinyaro iyo waayeelba in dhaliilaha dowladdu ay leedahay bannaanka lasoo dhigo oo muqaawamo nabadeed oo sharafeed la sameeyo oo haddii xataa dowlad deegaanku intaa qoortaa goyso aad runta sheegto waxaan dadkaa laga daayo ma cuntanto caruurtu waa bilaa mustaqbal intaasoo degmo ee deegaanka soomaaliyeed iskooladii lacagta waa laga cunaa wax dabageliya male wasaaradda waxbarashada daba socoto male caruurtii waa bilaa mustaqbal jaad iyo qabyaalad iyo nacayb mooyaane caruurtu markay yaryihiin baa la koriya ma jiro degmooyinkii baajidka waa laga cunayaa dad qabqablayaal oo qabiila oo dheerti oo ummaddu inaynu xukumo ahayn baa jooga dowladda waxaas mas-uuliyad ka saarnayd inay dad mutacalimiina oo cadaalad fali kara oo dadka isu soo dhaweyn kara oo niyad positive leh iyaduna ay la xisaabtanto marka ma samaynayso waa dhaliil cad oo loo baahan la sameeyo laakiin garaadka tuugtuug ku dhalay hebelka jaajuuska ah waxyaabaha noocaasa ma aha waxyaabo dhaqana mikrofoonka dadka xanuunsan qaarkood in loo dhiibo ma aha mikrofoonka dadka dhiiba waa inayn dad cilmi leh garanaya waxay ka hadlayaan dad gumaysi soo fadhiyo qaad sii cunayn waxay ka hadlayaan aan aqoonin in loo keeno ma oo inay sarqaansan yihiin inay caafimaad qabaan iyo maskaxdoodaba aan la garanayn fariintii bay halaynayaan isbedel doornimadii bay wasakhaynayaan waxaa loo baahan yahay isbedelku maaha mustafa dadka xun in la keeno isbedelku waa in mustafa dadka fiican cadaalad falaya xisbiyada deegaanka oo dhan isku wadaya oday dhaqameedyada isku wadaya maamulo nadiifa keenaya garsoor nadiifa keenaya hantida ummadda dhowraya dad noocaasa loo baahan yahay dagaalka la gelayo waa dagaal cadaalad ah iyo wanaagay maaha dagaal qabyaalad iyo reer hebel iyo jufadayda kursiga ku macaaniyo aniga aan iska rootiyeystay mustafa adigu qodob bannaanka fadhiiso maaha walaalayaal arrintu waa saas weeyaan midda kaleetaan waxaan arkayay garaad maqtal oo runtii hadalkiisa aada loo waday walaalayaal garaad maqtal bashiir uma baahna difaac bashiir maqtal difaac cid uga baahanya male qofkii ceeb leh baa la difaacaa ama loo baroortaa ama la wadwadaa qofka bashiir caaya isagaa sawir iyo toosh isku qabtay shakhsiyaddiisa waa in la weydiiyo qof caafimaad qabaa ma qof riyooba xaguu ka duulaya ma qabiil ahaan buu ninkan ku caynayaa xaggee iska jireen miya labadooda personal problem ba u dhexeeya waa in la ogaado qof walba oo hadalkiisa inaa micno u yeela maaha dadka qaar xanuunsan baa jira meeshan dhakhaatiir psychology ma jiro qaar isbitaallo in lagu xareeya ahayd baa jira marka dadka noocaasoo kale hadalladoodii in bulshadii lagu dhex wadwado oo welibana qabiil loo fasirto oo maanta o dhan laga dhigo wax weyn ma ah waa in la ogaado qofkan meeshu ka duulaya qof serious hadduu yahay ahlu sharafa ahlu caqliga oo garaad ku xadgudba waa la garta hala qabto qofka isaga oo hala dhawar maxaad ka wadaa waxan markay noo xaqiiqsanaatana dee markaas
wixii aynu ka dhahayno aynu ka dhahno laakiin qof inuu waalan yahay inuu fiyow yahayba aynu garanaynin iyo maskaxiyanta waxaan ka keenay in maaragtay aynu micno usii yeelama bashiirna difaac cidna ugama baahna difaac taariikheedu famil oo cariiqa buu leeyahay isaguna ilaa hadda wax dembi oo uu galay oo lagu hayo ma ay jirto haddadan unbuu garaad noqday marka ceeb taalo bashiir uu leeyahay ma laha waa laga ceeb badan yahay boqolaal dadkao dhan ba ka wada ceeb badan haddii baceebba laysu qabsanayo marka arrimaha noocaas oo kaleeta maaha qofkuna markuu yahay dadka qaar waxaa jira xiqdii uu dad caaya qaar qabiil oo cayn baa jira qaar waxyaabo badan baa jira laakiin qof walba markuu hadlo waa in la dhaho war ninkan xaguu ka duulaya markii la ogaado meeshu ka duulaya kadib la dhaho hadday khaldan tahayna loo nasteexeeyo runtii la dhaho war waxaad samaysay sax maaha waad khaldan tahay qofka sharaf baa lagu difaaci karaa adoona caroonin bashiir waa lagu xadgudbay war waxaad sheegaysaan garaadan oo umadood baa lagu xadgudbay waa simple way dhammaatay qofkaa isagaa ceebaysan isagaa shabad isku dhuftay shabadda way la soconaysaa garaadan oo beelood bucaayay isaga u taalaa meel walba isaga wejiga kaga taalaa marka arrinta iyada waa in aynu sidaas aynu u fahanno waxaan dhihi lahaa walaalayaal qabyaalad meesha ma taalo qabiil laysuma haysto qabiilo waxba uma dhexeeyaan meesha waxaa laysku hayaa kursi iyo hunguri kursi khubs lacagta anigu aan qaato on wax weliban aan dhaco wey maaha aan mushaar qaato jagada ku fadhiya xalaal ma aha aan lacag boobna xaaraan on bulshada anaa boobiyo xaaraanta anaa ku fiican iyo may anaa kaaga fiican xaaraanta iyoyaan dagaalkaata socda waana dagaal gaajadu dhib bay leedahay runtii dadku markay gaajiysan yihiin dhiga ma laha waxaad garanaysaan hadda tusaale ahaan mustafa waad aragteen 100 nin baa difaacaysa cabdi maxamed cumarna 100 nin baa difaacaysa dadkaas guri bay u difaacayeen maxamed cumar cismaan 100 jeer baa la cayn jiray waa kitaab baruug weligii cid ma caayin waa halgamayey weligii waa la cayn jiray meel walba cid difaacaysa ma aragteen jabhadii xubniin baa waxay dhihi jireen war maxaad adayga adeerkan ka rabtaa iyo gudoomiyeen ma jirto cid difaacaysa sababtoo guriga iyo waxa laga rabay iyo masabka iyo lacagaha iyo qandaraasyada iyo mahayo maxamed ismaaciil sidaas leeg baa loo cayn jiray maalin walba 24/7 cid u dagaalamaysa ma aragteen oo dhaawar ninka waa nin sharaf leh ninka waa ninkii aasaasayaashii jabhadii war maxaa laga rabaa no may lahayn ciddaba ordayso mayna jirin hebel maxaa loo caynaya mayna dhihi jirin marka walaalayaal waxa dagaalku waa dagaal hunguri weeyaan waana dagaal baahida ay sal u tahay cadaalad darraana jirta cadaalad jirrada intay jirtana waa lays haysan ama qabiil baa lasoo haysan qabiilku isagu waa instrument la isu isticmaalo qabiilka soomaaliyeed micno badan ma laha dadku waa wada qabiil waa wada ehel weye waxba uma dhexeeyo laakiin qabiilku waa wax la misuse gareeyo si xun baa loo isticmaalaa dad jaahiliina oo dib u socda kuwaas qabiilka isticmaala waxay u isticmaalayaan sharaf ma laha shakhsiyad ma laha iskuma kalsoona marka qabiil inay dabada ka istaagaan mooyaane iyagu ma awoodaan keligood dhinacaga ku istaagaan mid kale waxaa jirta dad wada dhaaranayo baryaan baraa bulshada wax kusoo batay ku haya saanway reer hebel baana laayay reer cabdilaana laayay cabdi maxamed cumar baa halkaa joogay reer cabdilaa dadka xasuuqayda ku haya ragga iyaga eesaa dhahaya reer cabdilaana laayay cabdilaa baana xasuuqay maalinkii meydku warnaa jidadka mayna halaynin maalinkii meydku warnaa ee gabdhuhu iyagoo meydkooda sidii ulaha madax saal isugu gelinhayay ee dadku sidii maaragtay beer la goostay saa u waraayeen meydkoodu codkaa isaga qabiixa ah ee maanta qaylinaya maanta oon dagaal soconin maanta oon dhiig daadanayn qaylinaya maalinkaa isaga qaylada loo baahna wuu aamusnaa maalinkaa isaga ah waxaan ku jiray dadkii kala ah war hadla war korow hadla war qayliya war mudaharaadka u soo baxa baan kala ah war idaacad yaa ku hadla war gabar hadli karta ma jirta oo nala dhigi karta raggii waan haynaaye gabdha hadla oo dhaa dhib baa naloo geysta ma jiraan maanta oon jirin wax la kursanayo iyo meyd dhulkii waran yaa waxaad arki rag abuurka afka saa ugu sii daynaya baadh reer hebel baa intana mariyey reer cabdillaahna laayay habar kuuley baana laysay waxaasay ku hayaan walaal maalinkii loo baahnaa ee kiilka iyo geysinimada loo baahnaa maada hadlin maalinka isaga ama sariirtaa hoosta kaga jirtay ama waaba sabcinaysay oo waxaad lay way saxan yihiin maanta marka ooyintaadu waa khalad waa too late weeyaan waa fulaynimadaada unbaad muujinaysaa waxaad rabtaa
qaladii kugu soo baaqatay annagu waanu soo baraaranay waanu soo dagaalanay lifena waan ka soo hadalnay meel walba dukumentigeennii baa yaala maalinkaa meydku daadsanaa dadka u hadlayay baan ahayn adiguna maa laynin dad qabiil isu laayayna ma jiraan bataatanba qabiil reer hebel aynu adtaagna yiri oo qabiil kaleeta aaday bataatanba ma jiro gumaysi siyaasad la yaqaano la ogyaho la maalgeliyey oo reer galbeed maalgeliyeen oo la yiri dadka iyaka ee soomaaliyada deegaankaa degan waa dad diintooda ku far adag waana dad dulli ah oo dhaqan adag wax walbay qadariyaan hala burburiyo gabdhahay jecel yihiin gabdhahooda dhan hala kufsado kitaabkay jecel yihiin kitaabka hortooda halagu googooyo salaadaha laga mamnuuco boolici noocaasoo la dejiyey bay ahayn qabiil walbana way fuliyeen qabiil walba raggoodii gabdhahoodaba way ku wada jireen xadgudubka iyo dulmiga waana markii isbeddelku dhacayna garkaanu qabanay mustafa maxamed cumar waxaan niri walaalow dadka iyakaa garsoor caadila dadkao dhan hala hor keeno qabiilkay ahaayeenba hadday reer cabdilla ahaayeen dadka xasuuqa hala wada xasuuqo laakiin muuna samaynin mustafa muuna samaynin cadaalad 2 wiil iyo 3 wiil buu xushay oo xidhay welibana waxba muunan samaynin kuwii kaloo dhan way wada taagan iyagoo jenaraal ah marka eedda afka hee maran ee beenta ee beelaha laisku soo jeedinayo iyadoo dambiilayaashii dhabta laga leexinayo kaasoo ah dowladda federaalka etoobiya oo bolisigaa dejisay ee dadka walaalaha la rabo in lagu sii kala fogeeyo ee welibana wejiyada aan la aqoonin runtii hadda anigoo kale haddaan dhaho qabiil baan helay waa gar sababto nin soo halgamaya baan ahaa nin kasoo horjeeday weligiiba aan ahaa dulmiga la yaqaano rag badan oo saaxiibadii baa jiro cabdishakuur xaaji cali budul iyo ragga iyaka hadday hadlaan dhahaan dulmigaasana lagu sameeyo qabiil baan xasuuq waa wax la gartay laakiin raggaan wejiyadooda la aqoonin oo mujrimiintii ama fuliyadii sariiraha hoosta kaga wada jiray markay nabadda arkaan inay intay soo mundhadaan maanta ay ciyaartii qabiilka dib dadka ugu bilaabaan oo dhahaan reer hebel baa reer hebel cayrsanaya waxaan leenahay akhlaaq ma lidiin geesinimo ma lidiin raganimo ma lidiin fulaya baa tiina sariirtiina hoosta dib ugu noqda sariirtaad hoosta kaga jirteen ku noqda maalinkii baroorta loo baahnaa maaha maanta maalinkii oohinta loo baahnaa maaha maanta maalinkii reer hebel baa na laayay loo baahnaa ma ahayn maalinku meydku saa u baraabaa la rabay inaad dhahdo haddii reer hebel ku xasuuqayan reer hebel baa xasuuqayan maalinkay saa u waraayeen gabdhaha walaalaha hortaada lagu kursanayay jeelowaadeenku uu furaa ee baroortu meel walba dhacaysa ee gabdhihii xabsiga laga soo daayay aan soo waraysanayni ee dukumintigooda saa u keenayni een kala ayn kaaleyna la hadla war mudaharaadka soo buuxiya masiibada ugu badan ay qabsan jirtay baa waxay markii aan Geneva horgeyno ee Brussels horgeyno mikrofoonku wax naga nasiyaan weyn jir qaylada war codkiina kor qaada war saamway dulunka dadkeena laga daayo xataa inay maaragtay sheeke iyo hebel waran bay hoos ka geli jireen kuwaas waa kuwa u fiicnaa wey kuwa hadda Facebook soo galay reer hebel baan xasuuqayda ku hayo waa tuugadii mujrimiinta weeyaan shaatigay rabaan inay ku qariyaan shaatigooday rabaan inay dembigay galan ku qariyaan meeshay jireen bay rabaan hadda inay dib u qallayaan intaan lahayn mudaharaad kusoo jiray rabaan hadda dib inay dadku bilaabaan dadku kala qaybiyaan dadku ma kala qaybsamayo qabaa'ilana maaha qabiilana isma haystaan shakhsiyo hunguri iyo loolan kursi u dhaxeeya weeyaan loolankaa kursiga iyo hungurigana inta cadaalad iyo sinaan laga helayo wuu jirayaa mana istaagi doono laakiin waa inaan loo arkin qabiil iyo reer midna mustafe iyo maamulkiisa meel walbaa lagu mudaharaaday shirarku way sii weynaan doonaan jigjiga hadda maanta way ka dhacayeen qabri daharay berri tegi goday bay tegi haddii aan la sixin oo policy feera oo qof walba uu qanacsan yahay qof walba xaqiisa helaya haddii la waayo wuxuu waystarayaan horey baan u neeray goortaan niri ma dhoweyn roobku dhibco usoo dhacaa laakiin marka dambe daadad buu noqon marka dambena webiyaal buu noqon marka dambena baddu ku geyn waxaa weeye dembigu intu uu yaryahay buuq markuu yaryahay in la xaliyo wey cadaalad iyo garsoor baa loo baahan yahay loo siinayahay waxaa weeye waan iska orgaya shacabku in lagu tijaabiyo maaha khamaar maaha turub maaha shacabku waxay u baahan yihiin cadaalad iyo sinaan loo wada dhan yahay wiilal dembiilayaalah oo jaahiliinah oo qabiilaystayaala in kuraasta ugu muhiimsanayd ummada intii lagu fadhiisiiyo ay ummadii qabiil madax isu geliyaan hantidii ummadoo dhan ay boodaan bilaa mustaqbal carruurtii ay ka dhigaan oo indhaha laga daawado suurtagal maaha of course xasuuq ma dhacayo kufsina ma dhacayo mana lihin mustafe shakhsiyan buu dembi u galay oon ognahay ma jiro lacagaha la tutuumayay dadku sheegayaan mooyaane
mustafa dembi galo dembigaa cad baan ku haynaa mustafa cidda haysa ma jiraan laakiin maamulka gobollada loo dhiibay ee qabiil walba leh waa tuugo hantidii ummadday boobayaan tacliintii kuwa loo dhiibay waa tuugo caafimaadkii kuwa loo dhiibay waa tuugo waxay la mid tahayna waddankan aan joogo qofka lacagta dhaca iyo qofka dadka dilaa ka dembiyaan sababtoo lacagtu waa hantidii ummadda oo dhan lagu hagaajinayay markaad hantidii ummadda oo dhan lagu hagaajinayay corruption geliso dembigeedu waa dembiyada ugu waaweyn wey reer yurub wax kale qofka dil wuu fudud yahay sanadaha la fariisiya waa la soo daayaa laakiin hantida ummadda ee la dhacayo tacliinta ubadka ee tacliin la-aanta ah caafimaad la-aanta hooyooyinka waad maqlayseen maalin dhaweyto dhuxun hooyo 3 carruura ee umur raacday oo weydey yacni hooyooyinka qaarkood waa aragtay dameeraa lagu wadaa intaasoo baabuur ambulance baa la keenaa intii layrka laga tuurabaa rag iska wataan oo sida laangruuser ay leeyihin u wataan waxaasna waa cadaalad darro waa xisaabtan la-aan waa sharci la-aan waa garsoor la-aan rag lacag ay shaqaysteen baa intii bangiyadii loogu tegay sharci dembi beena madaxa loo saaray lagala baxay dad guryo ay leeyihiin baa intii iyagoo suburloogada haysta oon maxkamad iyo midna la marin iyo xoog loogu qaatay waxaasoo dembiya baa dhacaya waana waxay dadku ka cabanayaan waa waxa bulaanka abuuraya waana waxa loo baahan yahay in la soxo ayaa loo baahan yahay arrintaana maaha arrin qabiila ma la dhihi karo reer hebel baa la necab yahay iyo reer hebel baa la jecel yahay midna maaha waa arrin u baahan nidaamku inuu soxo isa sixiduna diinteena nafaraysa dadku hadday isu sheegi waayaan wax khaldanna oy fikradooda cabiri waayaanna dadkaasu dad jira ma aha hadday noqoto cid walba hadday onlf noqoto iyo hadday cid walba noqoto waa in laisdhalyeeli karo waa in fikrada laisweydaarsan karo waa in qof walba wuxuu tirsanayo uu tirsan karo laakiin uu tirsan karo si ilbaxnimaa si reer magaalnimaa si aan xadgudub ahayn si aan nasabcay ahayn si aan lafagaar ahayn si aan isdil ahayn markii laisdhaliilana waa inaan loo qaadanin in maaragtay laisnacab yahay markaan leeyahay hadda bilimeter dowladda mustafa uu xukumayo mustafa waxaan usoo qaadanay waa madaxii keliya haddaan dhaliilo ma inaan mustafa necbahay qabiilkiisina aan necbahay maaha waxaa weeye waxbaan taabanayaa waxaasaan rabaa in la soco waana arrinta loo baahan yahay inakoo dhan inaan samayno baraha bulshada walaalayaal hadallo la dabagedinayaa jira dad waxaa jira namiimiin ah oo khaa'imiina runtii oo hadalka intay qabtaan dabagedinaya ninkaygan aad aragtaan khaliif cabdicali ayaa waxaa lagu yiri jarar buu necab yahay iyo reer jarareedka iyo jarar inay free noqoto yuu diidan yahay baa layiri noloshaydii intaa noolaa qof tolkay ah yaa khaliif wax yeelay weligeed lama arag qof tolkay ah baa reer ahaan haddaad soomaali oo dhan ba isaaq hadduu yahay yahwe hadduu yahay weligeed lama arag qof bini aadama oo waa reer hebel aanu wax yeelay ama waa reer hebel aanu nacay nolosheedu mayna dhicin dhaqanna umaliyi qof xigtaa iyo isaga iskaba dhaaf taariikhdayda iyo dadkayga iyo ehelkayga o dhanna way wada yaqaanaan taayada yacni dad hadalka dabagedinaya hadalan baan waxaan idhi war jarar free maxaad u leedihiin deegaanka oo dhan baynu free wada leenahay waynu wada dagaalamaynay annagoo dhan baa wada dhahaynay markaa gumaysi baan wada dagaalamayna hadalkiiba intii lagediya khaliif jarar ina xorowdu diidan yahay dadka noocaasa sida ibliiska hadalka u dabarogaya qofku wuxuuna u jeedin wax kale ka dhigaya qofku wuxuuna necbayn inuu necab yahay ka dhigaya cadaawadan jirin aan abuuraya xataa aan hubsanaynin ku dhahayn runtii bulshada waxaan ku jeclaa cabdullaahi xuseen nin sharaf leh waa khaliifo hadalkan maxaad ku keentay buu yiri waa ninka keliya ee yiri cabdullaahi xuseen khaliifo hadalkan maxaad u keentay waan u sheegay waan u jawaab waxaan ku iri nadar waxaan u gaaray waxay ahayd ujeedadaydu aynu wada hadalo deegaanku dhan wada awal markii gunagada la weeraray shacab gunagada waa la weeraray baan dhahayna annagoo dhan baa wada gunagada ahayn markii meel wax ka dhacaan galaasho la weerar galaasho waynu wada lahayn laakiin gobol gooni ah qoraxay keliya free maan dhahayn kamaan xaysin anigu qoraxay iyo shabeelle iyo jarar ima kala duwanaa qofka xornimo doonka deegaanadoo dhan waa isku mid qabaa'iladoo dhan waa isku mid sababtoo waxaa taagan tahay meel kore oo ah dadku ha xoroobaan laakiin kuwa dabaqoodiyada waa iska caadi iyo kuwa hadday dhahaan free jarar iyo no problem hadday dhahaan free qoraxay iyo qoraxay baa nahay iyo waa caadi laakiin qofku markuu xornimo doon gaaro darajada ayada waa in deegaankao dhan isuu kaa mid yahay gobolladoo dhan isuu kaa mid yahay dhibkii marba meelkii jirana aad wada difaacdo ujeeddada halkaasaan ka waday dad hadalka dabagedinayaa jira marka oo meeshaad u waday meelaan ahayn qaadayo oo fasira iyagoo raba inay qofka sumcad ka dilaan inay qofka barash xaar la mariyaan
inay qof xun dadka iyaga waxa weye waa khatar dadka ugu xun way adduunka bulshooyinkana dadka ku ciyaaro iyagoo la qofka ha aamusa camal hadda ninkayga hadlay qaarka waxay doonayaan in afka ay qabtaan una hadlin una fikirkayga cabir meeshay u arki lahayn xadaarad iyo ilbaxnimo dadku inay kala duwanaadaan waxaan u arkaa waxaan ugu jeclahay dadka idhaaliira dadka ka arka waxaan sheegayo wax khaladka ah ee ii caqli celiya ee ila challenge garay ee dhaqaale halkaas ka khaldan tahay in la isdhaliilo maaha ceeb qofka ku dhaliilo maaha cadow waxaa daran si personal in isu ataago oo haaskaaga iyo hooyada iyo adeerada iyo nasabkaaga lacayo laakiin marka hadday siyaasad tahay waxyaabaha siyaasadda waa laga munaaqashooda waa laisku khilaafa waa lagu kala aragti duwanaada waana taajirnimo waxaan leeyahay marka ehelkayga sharafta leh meel walbaad joogtaan dowlad deegaanka soomaaliyeed waan idinku dabadaalay ragaan anu ka mid ah waad ogtihiin mar walbana bulaankiina markaa maqlo isha idinkama qarsan karno sababtoo xadiiskii baan qabanaya markaad aragtaan wax khaldan gacmaha ku bedela oo haddaad gacmaha awoodi weydaan afka ku bedela oo haddaad awoodi weydaan niyad ka naca kiibaa mar walbana soo qabanaya hadda bulaankii markaan arkay garaadkii iyo hawshan iyo adisaba laftigeeda qolyaha adisaba waxaan leeyahay walaalayaal kaarkaa iska gubina haddaad shir qabanaysaan ood mustafa ka soo horjeedaan waxaad uga soo horjeedaan oo cad si anshax leh u sheega goob anshax leh oo codkiina la maqlayo oo caddahay qodobadaad ka hadlaysaan mustafa waa reer hebel keliya laguma nici karo kursigu joogaana laguma nici karo caraatankuna bataatanba meesha kuma jiro marka waa inaad si akhlaaq leh waa islubaysan waxaad tabanaysaan aad u sheegtaan anigu waa dadka dhiirigelinayaan dadku inay sheegtaan mihi anigu guulwado waan ahay mustafa markuu sharciga u hoggaansamo ee uu sharciga ilaaliyo ee dad nadiifa uu maamul u magacaabo ee xaqa loo sinaado ee hantida ummadda la ilaaliyo ee tacliinta la ilaaliyo ee garsoorka la ilaaliyo ee uu dabagalo ee uu muujiyo ee bulshadiisii mucaarad iyo muxaafid gacanta isku qabsado marka annagoo dhan ba u wada dagaalamayna garabkiisaan istaagaynaa inuu xukunkiisa haystaan jeclaanaynaa inaan la jiraan jeclaanaynaa laakiin markaan ognahay rag tuugaa inuu meel walba usoo diray oo dadkii madaxa saa isku wada gelinaya oo uunan la xisaabtamaynin oo carruurtii bilaa mustaqbal tahay dee halgankaan ku jirra maxay ahayd marka halgankaan ku soo jirray maalkeenii lacagteenii soo gelina maxay ahayd inay ummadda hesho cadaalad inay ummaddu hesho sharaf inay ummaddu hesho nidaam inay ummaddu hesho inay hor u socotay ahayd mayna ahayn intuu tuug dhalo meesha yimaado intuu tuug dhalo intuu meesha yimaado uu dadka ku ciyaaro mayna ahayn oo ummaddii madax lasu geliyo oo maanta dhahda sheekadu meesha maray soo aragtaan reebel iyo cabdili iyo isaaq iyo sheek xariirtaas goormaan soo maray sheeko waxay ahayd 50 sano laga soo gudbay noolayn bay ahayd maba waaba garan laana ilaa dadka afuufo laakiin shakhsiya afuufa ay liita waxaan leeyahay walaalayaal reer cabdili reer isaaq isma haystaan wax u dhexeeya male deegaanka qabiil haysto ma laha waxaa jira waa loolan kursi iyo hunguri weeyaan labadaas weeyaan loolanka hunguriga iyo kursiga marka qolo walbana waxay isku dayaysaa inay qabiilka ay salaankay ku fuuli lahayd ay ka dhigato laakiin waxaan idiin sheegayaa arrintan qabiilku ma soconayo wax qabiil la dhaho ma jiraan war qoladii mustafa mabdi'iisa uu arkay iyo qaabka u shaqeeyo wax fiican u raaca qolyihii uu arkay nidaamkaas inuu khaldan yahay idinkuna kasoo horjeesta si isna ixtiraama oo qolo walba ha challenge garayso mar haddiiba etoobiya lasu dacweynayo etoobiya untahay meesha loo baxayoon jirin garsoor la aado iyo sharci la aado degaan ka jirin dee marka xataa etoobiya aada laakiin caraatankaa la joojiyo salaadicayinkaa la joojiyo qabiil nacaybkaa la joojiyo reer hebel mashquulkaa la joojiyo waxaasoo dhan wax dadka anfacay ma walaalayaal aada iyo aad baan maaragta ugu dheeraaday ujeedkayganu wuxuu ahaa intaas walaalayaal inaynu sidaa u fahanno in aynu kala duwanaanshaheenu waa taajirnimo waa horumar waxay markaan mustafa dhaliilano iyo wasiiradiisa iyo maamulkiisa iyo corruptionkiisa tooshkan ku ifinaynaa si uu isu soxo hadduu soxo isna wuu guulaysan dadkuna way guulaysan laakiin haddaan aamusno innakana dembi bay nagu noqon isagiina maamulkii wuu xumaan dadkii oo dhanna bilaa mustaqbal bay noqon sida hadda iskoolada ka jirta iskoolo badan baan wacay anu dhalinyaro badan baan wacay waxaan ku iri maxaa laydin baraawo waxba kama jiraan dabagal ma jiro kormeer ma jiro lacagta macallimiintu mushaar ahaan bay iska qaataan carruurta oo dhan waa bilaa mustaqbal deegaanka soomaaliyeed oo dhan imtixaanka federaalka etoobiya lama diiwaan geliyo dhammaantood mustaqbalkooda meel xilli ku baaba'aya waxaasaa qaad say u cunayaan bay berika maalin reer hebeliye riwaayadan aad aragtaan reer cabdili reer isaaq bay kuu keenayaan hal qoys oo wada dhashay oo famila iyo waxay kaaga dhigayaan kuwa cadowgiisu ah waxaasna waa jahal weeyaan arrinta marka loo baahan yahay waxay tahay walaalayaal
waa in aynu joojinaa si wada jir ah dagaalka qabiilka. qabiil meesha ma yaallo. hunguriga iyo kursigana aynu u dagaalno si ilbaxnimo ah. hunguriga waxaa garaadwalaalba wuxuu yidhi hunguriga cadka rag walaalayo waa kaa waa hunguriga. suurtagal maa ragga qaarna inay iska cunteeyaan oo wax walba haystaan, ragga qaarna ay gaajoodaan ay ku samraan oo weliba madax laisu salaaxo ama waxa la wada cuno ama dee qarkaa laisla qabsan. waa sidaas weyaan weye. marka aynu saa wada fahanno dagaalku waa halkaa weye. qabiil maa, reero maa, reere isnace maa, reere isu cadow maa, reere isxasuuqa ma jiraan. bataatanba rag dhahay ree qabiil baa qabiil xaquuqo. I wish hadday jiraan qabiil aaminsan inuu reer hebel xasuuqayo gogosh soo dhigo, gogol soo dhigo, ha laysu yimaado, ha la wada tashto. qabiilkii aaminsan reer hebelow idinkoo reer hebel baad weerar nagu soo qaadeen ood maxasuuqdeen, qofka dhahayow gogol dhigo, ha lagu yimaado. arrintaa waa lagu wada hadlayaa. markaasaa la ogaanayaa inay gar tahay. laakiin nahida beenta ee media lala fadhiya reer hebel baa xasuuqay, reer hebel baa kan yeelay ee khuraafaadkaa la iska daaya walaalayaal. dowlad baa meesha jirta, xasuuqana weligeed bu dhacay. mar walbana meesha dad unbaa joogay qabiilla wada ah oo gumaysiga garwadeen u ahaa oo ama jaajuus u ahaa ama gacanyaro u ahaa ama dembiga geysanay. weligeedna mayna dhicin reer hebel baa xasuuqa cille. dowlad weye waxaan wax dadka watan waa dowlad. maanta mustafa ciidankiisu waxay khaldaan dowladda etoobiya mas-uula, waxay dilaan dowladda etoobiya ka mas-uula. qabiil mas-uulka ma ah, reer mas-uulka ma ah. mustafa reer dhicso ma matelo, reer cali ma matelo, reer saq ma matelo. waxa weye abiy axmed baa soo magacaabay. mas-uuliyadda abiy axmed bay dushiisa ku dhacaysaa. dowladda federaalka etoobiya waxa raalli kala bay dushiisa ku dhacaysaa. qabiilla wax u dhexeeya ma jiraan. aynu taa isla garanno bilaa calaykum, aynu isla garanno. waan ogahay oo dee dadku isku aqoon maaha. dadka qaarkood ma fahmi karaan ilaa heerka ay anu haddaan hadda qolkaygan baan ka hadlayaa. qaar ba waxay u arkayaan qabiilkayga inuu hadlayo. wa ayuun bay dhahayaan ninka hadlaya waa reer hebel. markii la reer hebel oo dhan ina waxaan ku hadlay reer hebel oo dhan baa loo qabsan. waxaana waa dembi. anuu aabbahay ma oga, walaalkay ma oga, walaashay ma oga. qolkayga baan waradeeda shitay waana warramayaa. waxaan ku hadla anaa sameeyey. marka anigu baa laygula xisaabtamaya. ilaahina wuu caddeeyey, wuxuu yidhi naf walba dembigay gashaa lagula xisaabtamaya. almuhim waxaynu leeyahay qaraabo, garaadada, salaadiinta, indheergaradka, culimaadudiinka caraatinka laga daayo. xataa ma ee mustafa caraatinka laga daayo, wasiiradiisa caraatinka laga daayo. war waxaa tabanaysa qof walba si akhlaaqla usoo gudbiso. maaday ninka wax ka tabanaya si akhlaaqla usoo gudbiso. sidaasay dadku ay wax u tahay. sidaasay ummaddu xataa fariintaadu dadka ma gelayso markaad caraatinto. hadda mustafaad cayday wuu ku dilay. waa awood wey, waa dowlad wey, boliis buu haystaa, ciidan buu haystaa, garsoor buu haystaa. adigaa ku dhabqaba. caydiis waxba kuma yeelaysid. adaa dhib kusoo gaaraya. ma habboona. laakiin haddaad dhibka wuxuu khaldaya aad sheegto, laakiin ilaahay baa ku ilaalinaya. soo ma ogdid? markaad wax xaqa sheegto malaa'ig baa ku difaacay oo quluubta mustafa xukunta oo ilaahay baa xukuma quluubtiisa. wixii aad sheegaysa inuu run yahay isaga laftiisa ogaan. energy ma helayo oo nacaybkiisa kugu muujiyo. laakiin markaad masabito ama qabiilkiisa caydo ama adigu fataal noqoteed hebelow odayga garaadku waa jaajuus dhahdo, hebel waa kan dhahdo, ilaahay malaa'igta uu kaa qaadanaya. sababto ilaahay kelabka ma caawiyo, mana difaaco. adigaa meel xun ku dhimanaya. marka adaa naftaada gacantiisu gelinaya. waxaynu ku hadlayna ha noqdo wax gar ah, xaq ah, lagu garaabi karo oo mustafa waardiyaashiisi qof walba oo garabkiisa taagan ay ku garaabi karaan oo dhihi karaan ninku waa runtii. laakiin maaha beel dhan hoggaankeed in la caayo bataatanba sax maaha. beel dhan hoggaankeed in la caayo sax maaha walaalayaal. xataa hadday khaldan yihiin, haddaad dhib ka sheegayso waa inaad dhibkaaga ada walaal waxay hebel ku haystaa uu igu sameeyey gar u dhigo. waddooyin kaleetoo la maraa jira. waxaana leeyahay nimanka siyaasiyiinta ee isbedel doonka ee addisaba ku shiraya, runtii addisaba in lagu shiro waa lagu qasban yahay. inta cadaalad darri jirto ee degaankii si xoro looga hadli karin waa lagu qasban yahay addisaba. sababto kuwa keeneen way addisaba maamulka dowlad degaanka. mar walba waa la tegi. haddii cadaalad darro intay jirto qaylo way jiraysaa. laakiin walaaliya waxaa loo baahan yahay inaad u qaylaysaan si ilbaxnimo ah oo dadka hadlaya fariintooda laga fahmi kara ay la yimaadaan. laakiin dad sig ah oo xanuunsan intaad mikrofon u dhiibtaan inaad adaan reer saaq ku butaa maaha gar. reer saaq ku butaa gar maaha.
maamulkiinanu sidaa kuma imanaya awoodna sidaa kuma helaysaan qabaa'ilada iyo nasabka dadka islaameed yaan lacaynin oo qaabka noocaas ee negatifeka noocaas waxba maaha qabaa'iladu waa qabaa'iladeeni dadku waa dadkeeni dadku oo dhan way isku wada xidhan tahay waxaa loo baahanyaa in laisu mucaarado si macquula oo caafimaad qabta oo laisku challenge gareeyo sidayda ka fiican anaa waxaad hayso ka fiican sidayda ummadoo dhan midaynaysa sidayda ummadda horumarinaysa loolanka la gelayo waa kaawey laakiin reer hebel iyo haddii intii dad xanuunsan intii cunto labada sambuusa lasoo hordhigo la ordaya ku butaaca oo qabiil hebel caaya inay mar walba saan way hebel garaadka jaajuus dhalay maxaad caddaynaysaa jaajuus argumenti aan caddayn lahayn maaha in la sheego markaad ummad caynaysoon ummad eedaynaysaan waa inaad proof hayso shakhsiyadaha ummadaha in loogu meel dhaco meel cidlaha ma ah dembi weeye waxaan facebookaan ogolayn iskaba dhaafo wax kale in qofka shakhsiyadiisa aad ku xadgudubto iskaba dhaafo ummadan dad xukma intaasaan idin dhihi lahaa walaalayaal waxaa weye mar walba waxaa weye dhegii ilaahay waaniyaa waantoosan abwaansangu baa waxaa laga hayay dadkan hadda la hadlay aad uu yaqaanay wuuna dhex galay wuuna ogaa wuxuu yiri dhagoolo waa loo midaaraa laakiin qofkii dhega leh een wax maqlaynin sidee hadal looga dhaadhicin yani qofka dhagoolaha saan baadi oo waxun buu fahmi oo ku maqli oo ku garan laakiin qofkii dhegihiisa isagoo qaba yani si u kas ah yani wanaagga iyo xaqa iyo wax walba isaga leexinaya sidee hadal uga dhaadhicin karaysa waa suurtagal maaha wey suurtagal maaha marka waxaan idin dhihi lahaa walaalayaal rusdigiina usoo noqda dowladda waa la dhaliil onlf waa la dhaliil maadi waa la dhaliil mustafa waa la dhaliil qof walba oo siyaasad position jooga hadduu gobol tawreya iyo hadduu degmo yahay waa la dhaliil xaq buunu leeyahy qof walba inuu dhaliilo laakiin in loo dhaliilaa rabaa si anshax leh oo caddaymo leh oo proof leh mala awaal keliya maaha qaab qabiilna maaha in loo haytamo aad baad mahadsantihiin intaad dhegaysateen waxaan rajaynayaa inuu hadalkan ilaahay idinku anfaco oo dadka xanuunsanaya uu dawo u noqdo oo la ogaado meesha qabiilo inaan waxba u dhexaynin qabiiladu waa ehel waa walaal waxba uma dhexeeyaan wax allaana wax u dhexeeya ma jiraan hunguri baa laisku haystaa iyo kuraas hunguriga kuraasta waddooyin kaleete inaan qabiilka jaranjaro ka dhigan nin walba saad u dagaalamata tabtaad u marayso u mar laakiin walaalayaal ha laga daayo arrimaha qabyaalada ha laga daayo qof walbuna fikirkaaga si fiican usoo gudbi insha allah ilaa hadduu yirahdo aad iyo aad baan intaa idinku boorinayaa waxaana la leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad aan xasuusinayaa wiilasha iyo gabdhaha raba hadda inay dib u qaleeyaan halgankii aan kusoo jiray ee hadda raba iyagoo sariiraha hoosta kagu jiray intay maanta kasoo baxeen 2020 raba hadda inay dagaal qabiil abaabulaan ee dhahaya reerkeeni baa la xasuuqay war walaalayaal maalinkii meydku u daadsanaa sida caws la guray sida balkii een barooranayna een meel walba taagnayn xaggee jirteen su-aashaas baa idin weydiinayaa khaasatan su-aasha waxaan weydiinayaa raggii halgamayay kama maqlo aan waxaas raggii halgamayay naqaanay ee mudaaraadayay ee dagaalamayay ee waxaan waa khalad ee mar walba afka u furaa ma aha dadka qaylinaya wejiyaana aqoonin baan aragnaa oo barooranaya sida iyagoo caawa soo dhashay marka anu laba mid wey ma kuwii dembiga gelaya ama dembiga u sacabinaya ama fulinimo sarirta hoosta kaga jira waa intaa midkood waxaa idin leeyahay walaalayaal waa laga soo gudbay waqtiga isagaa maanta waxaa loo dagaalamayaa waa xisbiyo iyo maamul iyo horumar weeyaan marka kuwa iyaga waxaan dhihi lahaa walaalayaal waa too late cowards fulayaatiin weliba meeshaad ka bilowdeen baa igu daran qaab qabiil inaad dadka isugu garaacdaan reer hebel baa saasa reer hebel baana xasuuqay aniga imow lifekan iga soo qabso haddaad reer hebelkaa la xasuuqay qabiilkaaga haddaad aaminsantahay in qabiilka la xasuuqay kaalay proofed ken proofka qabiilka aan wiilashiisa oo mujrimiina ayna dad xasuuqin xaguu joogaa qabiil walba wiilashiisa iyo gabdhihiisa wax xasuuqaya jaaliyadaha dibadda qabiil walbaa ku jiray iskaba dhaaf kuwa gudee gumaysi waa loo wada shaqaynayay raggii intaa laayana iyagoo jananay joogaan welibana carruuro nool 57 qof oo saacadoodu dhiidhiid ilaa hadda leeyihin meeshii lagu aasay raggii lagu aasay liyuu booliiska ku jiraan tan iyo maanta xabsina lama geyn marka walaalayaal afka iyo nafaraha iska gelin waxaan dhacay ma sixi karno gumaysigii baa jooga waxaasoo dhan sameeyey dadka marka hadda uma baahna in lagu mashquuliyo waxaad ka mashquulinaysaan dadka
yoolkoodii oo ahayd inay gudnimada ka baxaan. maanta waxaa laydinka rabaa inaad tacliinta iyo midnimada iyo bulshadii inaad caqligeedii iyo garaadkeedii muddadan yaray nabadu jirto intii sii jira ilaahay ba ogey inaad soo kabtaan uun bulshada dhexdeeda isku mashquulin oo xuquuqda meelaha kale uga maqan loo soo dhexeeyay. runtii ma ahayn maanta in loo guuro meelahan arkeed haabanaysa. aad baad umahadsantii raalli ahaba. intaasan rabay inaan idin dhaho waxaan dhihi lahaa walaalayaal waxubsada intaydan wax la boodin. qofka waa la weydiiya qofka horta u jawaabaysaan ama ka didaysaan ma waalan yahay, ma caafimaad qabaa, muxuu yahay, yaa yaqaana, bal horta marka hore dhaha. kadib markay idin caddaato hadduu shaqsi jiro yahay muxuu dhaha. sayid maxamed baa arrimahan hadda taagan oo kaleeto arkay een la yaabarnayo. markaas wuxuu yidhi qofaan sharaxa diimeed shayna aan ka garanayn, sharaxa diimeed qofaan aayadna ka garanayn haddii aad u sheegtana shaqfadla oo aan qabanayn, haddaad u sheegtana dee aan qalbi iyo fahmo lahayn oon qabanayn oo kula shikaayon ilan waa shidiyahoog yani oo haddana kula doodi oo kula murmayo waa dhibaato iyo masiibo. qof aan diinta ilahi waxba ka garanayn, cilmi lahayn, haddaad u sheegtana aan ku maqlaynin oo haddana kula murmayo waa wareer wey. ha noqonina saas. qof walba waxaad aqoon u leedahay ka hadal. aadna waad mahadsantihin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.